maamulka barta ka jiro ayar indhihiiba idin haya right now in badan bay indhaha xagga meelo kale ku sii jejeedeen a lot of places bay indhaha ku sii jejeedeen ma garateen Jubbaland I am looking right now duqbilow ee shacabka Soomaaliyeed way fiirnayaan waa in la keenaa cadaaladda rag ninka dilay waa in cadaaladda la hor keenaa weeyaan waa in cadaaladda la keenaa shacabkan kacsan ee eediska iyo sunta soo qaatay ee raba inay aargoostaan waa in wax cad oo cadaan loo keenaa oo la yiraahdaa waxana dhacay sidana wax u dhaceen waa in la yiraahdaa aamusnaantii ma jirto adeer macaan aamusnaantii ma jirto jareer weyne wallahi way aargoosanaysaa jareer weyne way aargoosanaysaa ambihii ku duri rabtaa eedis iyo sunbay ku duri rabtaa tush irbad intay soo qaad mana la dareemay intay ku durto oo irbadda sunta ku durto ambaha iyo mooska ya kismaayo loo suugeynaya waan gadanaynaa adaa gadanaya madaxweynaha meesha ka jira askariga gadanaya aruurtiisa gadanaysa lugta wada taagaysaan wallahi billaah talla wixii ku hadlayeen jareer weyne waa dharsan yihiin aad dhigas laakiin culumay leeyihiin wax garad bay leeyihiin dad sharaf leeyihiin dad Soomaalnimada ku inta leeyihiin oo waxaasi qaban doono laakiin gabadh iyo wiilkooda jareer weyne la dheerayaasha jareer weyne inay arsadaan bay rabaan wallahi beenna ma jareer weyne inay arsato oo ismuujisay rabtaa qorina ma ku arsan rabto qori kuma arsan rabto ma ogina hadda wali eediskii iyo suntii loo gudbiyay jubooyinka loo gudbiyay gosha duqbulo warka maahay laakiin qaabka wax loo gorfeenayay ee ma garanaysaa ee ku arsan rabaan ee community-gi Mareykanka joogay kuwa gudaha joog kuwa Mareykan jooga ayaa aqli waa aadi dhageyst kuwa Mareykan joogo ayaa control kuwa gudaha ku jiro kuwa Mareykan joogo that's how they talking wa inta soddon sano yaana la dilayay dhulkanagi baa la dhacay loo mooyaan bay naga dhigeen waa baabaha bay naga dhigeen Soomaali waxa weeyaan noocan weeyaan shan weeyaan waana xanuunka wiilkana laga dilay waana xanuunkiisa tusnaabay dhahan Soomaali